magaalada Hargeysa Somaliland ayaa waxa ay shaacisay inay si rasmi ah ay u mamnuucday in goboladeeda lagaga safro baasaboorka dawladda federaalka Soomaaliya sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyahayaga Maxamed Faarax Xumaade oo nooga soo warrama magaalada Hargeysa. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Somaliland Cali Maxamed Waran Cadde oo warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa kadib kulan uu la yeeshay wasiiro ka socday dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo toddobaadkii ugu dambeeyay socdaal ku joogay Somaliland ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay halkaasi waxa uu kaga hadlay waxyaabihii ay ka wada hadleen waftigan wasiirada ah ee ka socday dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. runtii waxa la socotaan dalka Itoobiya yahay dalan jaarnahay oo walaalanahay cilaaqaad balaaran baan inaga dhaxeeya waxyaabo badan oo aan iska kaashanayna way jirtaa marka dawladda deegaanka uu fuudda ka yimid iyo wasiirada ka yimid waxaan ka wada hadalay waxyaabo badan iyo sidii la isu kaashan lahaa dhinaca xuduudda sidii la iska kaashan lahaa way xuduud dheer baa inaga dhaxaysa dawladda deegaanka Itoobiya oo iyagu Itoobiya uga wakiil yihiin marka sidii nabadgelyadiisa iyo isu socodka dadka iyo muxuu ahaayay dhaqaalaha intaba looga wada hadli lahaa ama la iska kaashan lahaa baanu ka wada hadalay runtii qodobo dhowrna waanu isla qaadanay in iskaashi buuxa la sameeyo oo muxuu ahaayay gobolada ku soo jeeda muxuu ahaayay xuduudda labada dhinacba in iskaashi buuxa yeeshaan oo ay si toos uga wada shaqeeyaan nabadgelyada iyo isu socodka iyo dhaqaalaha intaba runtii iskaashi buuxa sidii loo sameyn lahaa oo muxuu ahaayay khuseeya labada dal baanu ka wada hadalay dalkaasna runtii waa dal inaga dhaxeeyo xiriir wanaagsan mar walbana ay loo baahan yahay in muxuu ahaayay aanu muxuu ahaayay la ilaaliyo labada dhinacba. waxa kale oo wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland Cali Maxamed Waran Cadde uu shirkisan jaraa'id ku sheegay inay mamnuuceen in Somaliland lagaga dhex safro baasaboorka dawladda federaalka ee Soomaaliya kaasi oo ah baasaboorkii dambe ee casriga ahaa. talabaad imika nagu soo kordhay wax weeyaan dad badan oo sita baasaboorka Soomaaliya oo damacsan ama damcay inay ka talaabaan xuduudda inoo dhaxaysa inaga iyo Itoobiya ama kilka taawaan mamnuucnay Soomaalida sita baasaboorka Soomaaliya anagu ma ictiraafsanin baasaboorkoodana ma ictiraafsanin sida awgeed maadaama aan ictiraafsanayn lagama bixi karo Somaliland ninkii baasaboor sita wuxuu kaga bixi karaa halka laga aqoonsan yahay Soomaaliya taana muxuu ahaayay si aanay dhibaato u gelin xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya xuduudda Somaliland iyo Itoobiya awgeed waxaanu u diidnay inay ka baxaan wajaalo oo kale iyo meelaha laga baxo dadkana waxaanu sheegayaa in wadamada ay ka yimaadeen ay u dhasheen inay ka baxaan haddii doonayaan inay Itoobiya galaan waayo xuduud bay iyagu leeyihiin laakiin halkan lagama safri karo baasaboorka muxuu ahaayay Soomaaliya maadaama aanan aqoonsanayn. Maxamed Faarax Xumaade, Somali Channel, Hargeysa. magaalada Hargeysa Somaliland ayaa waxa ay shaacisay inay si rasmi ah ay u mamnuucday in goboladeeda lagaga safro baasaboorka dawladda federaalka Soomaaliya sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyahayaga Maxamed Faarax Xumaade oo nooga soo warrama magaalada Hargeysa. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Somaliland Cali Maxamed Waran Cadde oo warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa kadib kulan uu la yeeshay wasiiro ka socday dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo toddobaadkii ugu dambeeyay socdaal ku joogay Somaliland ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay halkaasi waxa uu kaga hadlay waxyaabihii ay ka wada hadleen waftigan wasiirada ah ee ka socday dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. runtii waxa la socotaan dalka Itoobiya yahay dalan jaarnahay oo walaalanahay cilaaqaad balaaran baan inaga dhaxeeya waxyaabo badan oo aan iska kaashanayna way jirtaa marka dawladda deegaanka uu fuudda ka yimid iyo wasiirada ka yimid waxaan ka wada hadalay waxyaabo badan iyo sidii la isu kaashan lahaa dhinaca xuduudda sidii la iska kaashan lahaa way xuduud dheer baa inaga dhaxaysa dawladda deegaanka